hurdadu waa shay dabiici ah qof walina wuu u baahan yahay waqtiyadan hurudna unugyada jidhkeenu waxa uu ka helaa hurdada faa'iidooyin badan waxay kor u qaadaa hurdadu habdhiska difaaca jidhka iyo faa'iidooyin kale oo badan oo aanan muuqaalkan gudihiisa kusoo koobi karin haddaba hurdadu ayadoo faa'iidooyinkaasi sidaasi u tirada badan leh suurtagal ma tahay qofka inay nafshadiisa halis gaarsiiso sanadii 2014 ayaa wiil dhalinyar ah oo lagu magacaabo Victor Kasikjigwa waxa ku dhacday arrin la yaab leh oo aan noloshiisa maalintaasi ka hor ku dhicin dhacdada ku dhacday ninkan ayaa waxay ahayd asagoo maalin maalmaha ka mid ah mootadiisa amba dugdugleediisa ku wata waqooyiga dalka Kazakhstan una jihaysnaa magaalo aan sidaas uga fogeyn waxa hal mar ninkii ku soo booday tacab iyo daal uuna horey isugu ogeyn kaasi oo ku sababay ninkii isagoo magaaladiiba gaadhan inuu hurdo ka galo isagoo mootadii saaran waxa uuna hurdadii ka soo toosay 4 maalmood kadib arrinta la yaab kale ayaa waxay ahayd ninkan waxa uu leeyahay garasho waxay ugu dambeysay anoo caajisan oo mootada saaran siday wax u dhaceen iyo waxa igu dhacay muddadaasi 4 maalmood waxba kama xasuusto arrinta kasii la yaab ka badan ayaa waxay tahay wiilkani ma uusan ahayn shakhsigii ugu horreeyay ay xaaladdan kale la soo daristo tuulo lagu magacaabo oo ku taala dalka Kazakhstan ayaa waxa ku dhuftay cudur aan la garanayn oo ku dhacay in badan oo kamid ah dadkii tuuladaasi ku noolaa qofka uu ku dhaco ayaa waxa uu ku sababaya qofkaasi inuu hurdo maalmo badan arrinta la yaab kale dhammaantood dadka ay xaaladaasi la soo diristay kama uusan jirin qof karta oo xasuusta waxay ku dhacday gabadh 60 jir ah oo lagu magacaabo Taysi oo ku noolay tuuladaasi Kalati ee dalka Kazakhstan hal mar oo kaliyana ma ahayn ee ilaa 3 jeer ayay xaaladdan la soo diristay gabadhan walibana sanado kooban gudaheeda markii ugu horeysay ay arrintan la soo diristay gabadhan waxay ahayd 2012 maalin maalmaha ka mid ah sida caadada ayadoo gudanaysa shaqadeedii maalinle ayaa hal mar si kadisa waxa uu dareemtay madaxa oo wareegaya waxaa dareemtay caajis iyo hurdo gurigii markay tagtayna si kadisa waxay ku dulbooday sariirta waxayna ka gashay hurdo balse waxa ay soo baraarugtay ee hurdadii ka soo toostay ayadoo ku jirta dhakhtarka oo aan gurigeediiba joogin waxaana gabadhii soo caawisay oo dhakhtarka u soo qaaday gabadh ka mid ah jaarkeeda balse markii ay guryahoodii ku soo laabteen haddana gabadhii kale ayay xaaladii qabsatay oo waxay gashay hurdo aad u dheer waxayna arrintani si weyn ugu dhex baahday dadkii ku noolaa tuuladaasi in badan oo ka mid ah dadkii ayaana ku dhacday balse kuma uusan jirin qof karta sababta ka dambaysa inay dhacdadana si isdaba jooga ugu dhacdo si gaarana ugu dhacdo oo kaliya dadkii tuuladaasi ku noolaa muddo 3 sano oo kaliya gudaheeda ayaa arrintani waxay ku dhacday in ka badan 100 qof oo ka tirsanaa dadkii ku noolaa tuuladaasi Kalati uma uusan kaleegin cudurkan yar iyo weyn dhammaantood dhulka ayuu ku wada riday haddaba sidee wax ugu dhacaan dadkan maxayse dareemaan marka uu ku dhaco marka uu soo bilaabayo qofku waxa uu dareemaa madax wareer dhulka ayaa la wareega lugahana waxa uu ka dareemaa daal badan daqiiqadaha ugu dambeeya markay dadkaasi hurdada ka soo kacayaan in badan oo kamid ah waxa ku dhaca qarab waxayna bilaabaan inay isla hadlaan ilaa ay hurdada ka soo toosayaan intaasi waxa uu dheer qofka hurdada lagama kicin karayo in badan oo kamid ah dadka uu aseebay cudurkaasi waqtigii ay ku wada jireen hurdada ayaa lala hadlay oo lala sheekaystay badankoodana waxaad moodaa inay maqlayaan ambaba si ay fahmayaan waxa lagula hadlayo balse midkoodna ma uusan awoodeyn inuu afka kala furo uu dabnaha dhaqdhaqaajiyo ambaba saw indhaha kala furo cudurkani oo qofka uu haleelaya si kadisa ayaa dhakhaatiirtii waxay awood u yeelan waayeen inay gartaan ambaba se ay qeexaan waxa uu yahay cudurkani qofka uu cudurkani ku dhaco waqtiga uu soo tooso oo uu sidaasi indhaha u kala furo waxa shaqayn weyda qayb ka mid ah xusuustiisa sidoo kale waxa dhiba hadalka iyo dhaqdhaqaaqa cudurkan ayaa waxa uuna ku ekaanin dadkii oo kaliya oo xataa waxa uu ku dhacay qaar ka mid ah xayawaanadii ku noolaa tuuladaasi xayawaanadaasi uu ku dhacay waxa ka mid ahaa bisad lagu magacaabo Marquez ninkii iska lahaa bisadaasi ayaa waxa uu yiri markii ugu horeysay oo cudurkan ku soo dhacayay waxaanu ku aragnay dhaqamo aanan hore uga arag markii ugu horeysay waxay bilowday inay miyaw tiraahdo oo ay dhawaaqdo wax yar kadibna waxay bilowday inay wax walba la dagaalanto haddii noqoto gidaarka geedasha iyo wax waliba oo taabta lugaheeda ugu dambeynna waxa ay gashay hurdo arrintii ka yaabisay mulkiilihii bisadaasi ayaa waxa uu sheegay muddadaasi ay bisada hurdada ku jirtay inay sida bini'aadamka oo kale u qoorinaysay haddaba waqtigii ay dhacdadaasi la yaab ka badan ka soo ifbaxday tuuladaasi ayaa xukuumadda Kazakhstan waxa ay bulshadii ku noolay tuuladaasi ka codsadeen inay tuuladaasi isaga guuraan oo u guuraan tuulooyinka kale ee jaarkooda in ka badan 50 qoys ayaa tuuladii isaga yaacay oo u wareegay tuulooyinka kale ee jaarkooda boqolaal kale ayaa iyagana waxay diyaar garow ugu jireen sidii ay uga guuri lahaayeen tuuladaasi xagga qaar ka mid ah dadkii ku noolaa tuuladaasina ay ku adkaysteen inay ku noolaanayaan tuuladaasi ayagoo aaminsanaa inuusan sabab u ahayn deegaankani ay ku nool yihiin imaanshaha cudurkani haddaba markii uu cudurkaasi tuuladii sida weyn ugu dhex baahay ayaa culimmadii dhakhaatiirtii iyo baadhayaashii waxa ay sameeyeen baadhitaano badan oo ay ku baadigoobayaan cudurkaasi meesha uu ka dhashay iyo waxa uu yahay in badan oo ka mid ah daraasadihii la sameeyey ayaa waxa lagu sheegay inay sabab u yihiin qaar ka mid ah cabitaanadii laga cabeeyey tuuladaasi balse baadhitaanadaasi ugu dambeyn waxa ay noqdeen kuwa fashilmay oo waxaa la arkay xataa carruurtii yaryarayd oo iska seexanaya oo aan kaba soo toosayn hurdadii intaasi kadib culimmadii waxa ay sameeyeen baadhitaano badan iyo tijaabooyinno badan oo cilmiyeysan
ayagoo isla markaana sameeyey in ka badan 700 oo tijaabooyin. Waxaa tijaabooyin lagu sameeyey tuuladii ay ku noolaayeen, biyaha ay cabayeen, ciidii, hawadii, dhiiggii bukaanada, cidiyahoodii iyo dareemadoodii. Balse nasiib darro baaritaanadaasi la sameeyey dhammaantood waxa ay noqdeen kuwa guul daraystay. intaasi kadib waxay bilaabeen inay tuuladii ka joojiyaan qaar ka mid ah manaafacaadka guud ee dadweynuhu wada isticmaalaan si loo ogaado ciladu meesha ay ka imaanayso. waxay tuuladii ka xidheen tuumbooyinka u soo gudbiya gaasta, waxay ka xidheen biraha dhaadheer ee magaalada u soo gudbiya communicationka taleefanada iyo khadadka internetka iyo wixii la halmaana. sidoo kale waxaa baaritaano xoogan lagu sameeyey bakteeriyada iyo fayrasyada ka dhalan kara ambaba se soo raaci kara biyaha la cabo, balse haddana sidiisi la mid ah awood waa u yeelan kari waayeen inay xadidaan meesha ay ciladu ka imaanayso. haddaba siyaabooyin kala duwan ayaa loogu fasirtay soo ifbaxa cudurkan iyo tuuladani uu ka gooni noqday, balse ilaa haatan lama hayo caddayn rasmi ah oo muujinaysa meesha uu cudurkani ka imaanayo.